بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولاليال برنامج كيني لما قعبحي حول معلومات نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفردقي أما كولنكي سقالية طبانات waxaan soo maraynay salaadii cishaha iyo xaaladii uu nabiga uu ku sugnaa sallallahu alayhi wasallam halkan darsigan waxaan ku tilmaamaynaa layaali rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam habeenadii rasuulka xaalkee buu ku sugnaa qaabkee bayna u dhici jireen nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu salaada cishaha soo tukado gurigiisu ku soo laaban jiray labada ragcee ee raatibada cishaha ka dambeeyana guriga ayuu ku tukan jiray waxaa dhici jirtay inuu waqti markaa la qaato ahalkiisa isaga oo wareysanaya isagoo qalbigooda farxad gelinaya isaga oo la haasaawaya oo la daahaya inta uusan hurdada isku diyaarin uusan seexan mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inuu ku soo daaho ama uu aadaba reer ansaar habeenada qaarkood inuu guryahooda ku soo daaho waa dhici jirtay habeenada qaarkood waxaa dhici jiray inuu abubakar ama cumar ama saxaabadiisa qaar ka mid ah inuu waqti iyo fadhi iyo kulamo la qaato guriga abubakar ama guryo kaleba ha ahaadee iyagoo markaasi ka arrinsanaya ama ka hadlaya arrin ku saabsan arrimaha muslimiinta nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu bannaanka ku soo daaho markuu gurigiisa soo aadayana saxaabadu waa soo raaci jireen oo waddada ayay rafiiq ugu soo noqon jireen oo waa soo dhoweyn jireen ilaa uu guriga ama masjidka uu ka soo galo waxaa dhici jirta habeenada qaarkood nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu waddada ku soo maro qaari qur-aanka akhrinaya oo aada u sawd macaan oo saxaabadiisa ka mid ah isagoo saxaabigaasi qur-aanka ku tukanaya salaatuleyl deedna uu nabiga sal ly slam uu ag istaago isagoo dhegta u raaricinaya dhegaysanayana qiradaasi iyo sawdka quruxda badan ee qur-aanka lagu akhrinayo sidiiba uu sameeyey abuu muusa alashcari radia allahu canhu ayuu soo maray habeenada ka mida nabig sal slam abuu muusa isagoo taagan oo qur-aan ku tukanaya markii uu waabaristay ayaa abuu muusa nebiguu la kulmay abuu muusa alashcari markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi yaa abaa muusa low ra'aytanii wa ana astamicu liqiraa'atika albaarixa haddaad i arki lahayd xale aniga oo qiraa'adaada dhegaysanaya anigoo ku raaxaysanaya sawdkaaga laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud waxaa lagu siiyey codqureex iyo sawd wanaag ka mid ah codqureexyadii nebiyullaahi daawuud la siiyey salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh sidaasuu ku yidhi abuu muusa riwaayadka qaarkood waxay tilmaamaya abuu muusa wuxuu yidhi yaa rasuula allah haddaan ogaan lahaa inaad i dhegaysanaysid waa sii qurxin lahaa codka habeenada ka mid a nabig sal slam masaajidka ayuu soo galay fa-idaa cabdillaahi bni mascuudin qaa'imun yusalli waaba cabdillaahi bni mascuud oo taagan oo salaad tukanaya weliba qur-aan tartiila akhrinaya suuratu nnisaa ayuu akhrinayay nabiga waa istaagay sala allahu calayhi wasalam isagoo dhegta u raaricinaya qiradaasi kadib buu wuxuu ku yidhi abubakar iyo cumar oo la socday man sarahu an yaqra'a alqur'aana radban kama unzil falyaqra'hu calaa qiraa'ati ibni ummi cabdin qofkii doonaya qur-aanka inuu akhriyo isaga oo sidii lagu soo dejiyey oo fresh ah ha ka akhristo waa maxay cabdillaahi ibni mascuud ibni ummi cabdin maxaa yeelay sidii ilaahay usoo dejiyey qur-aanka uu akhrinay nabiga sal slam masaajidka haddii uu soo gala habeenkii uu salaami jiray dadka maxaa yeelay masjidku kama marnaan jirin saxaabo weliba fuqaraau saxaaba ahlu sufihi inay masaajidka dhex degan yihiin oo ay dhex seexanayeen mar alla markuu masaajidka soo gala habeenada waqtiyadiisa kala duwan uu salaami jiray laakiin salaamitaanka uu salaamayo waa salaan uu maqlayo qofka soo jeeda isla markaasna qofka hurdana uusan ku toosaynin uusan ku kacaynin gurigiisa marka uu gala nabiga calayhi salaatu wasalaam oo bannaanka uu ka soo dhammaado uu damca inuu seexdo dharkiisii waa iska bedeli jiray dharkii maalinkii uu watay uu iska bedeli jiray oo waxaa caado u ahaan jirtay inuu xirto maro hoosgunti ah oo guriga u ooli jirtay oo loo dhigi jiray firaashkiisa ama gogoshiisa dhinaca barkinta ama madaxa xigta
mara loo saari jiray, maradaasuu xiran jiray, dharkiisa kalena nebiga sal slam waa iska bixin jiray. waxaa dhici jirtay mararka qaarkood marka uu dharka iska bixiyo inuu go-a la wadaago zawjadiisa marka uu la joogo. gogosha nebiga sal slam uu ku hurdi jiray wuxuu ahaan jiray maqaar mararka qaarkood la buuxiyey oo la hoosgeliyay oo lagu cufay waxyaalaha maxaliga suufka ama geedaha laamihiisa iyo caleyntiisa iyo waxa la midka ah. wuxuu lahaan jiray nebiga sal slama wisaada barkin sidoo kale maqaar ah oo iyadana cuf uu ku jiro oo waxyaalo lagu guray oo markaasi jilcinaya. taa ayuu barkin ka dhigan jiray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. waa tii cumar intuu mararka qaarkood uu arkay darintii ama gelihii uu ku hurday ama maqaarkii oo jirkiisii galay oo saameeyey oo laga arkayo maxay raadkii uu ku reebay, markaasuu iska ooyo uu yidhi muluugtii qaysar iyo ninkii ahaa kisra iyo qaysar waxa weeye waxaad aragtay bay ku hurdaan, sidaad aragtay bay u raaxaysanayaan, miyaad maxaa la yidhaahdaa yaa rasuul allah. arrinkii waa ka murgay cumar, wuxuu ku yidhi cumarow iyagu adduunyaday leeyihiin inaguna aakhira ayaan leenahay. walidaalika nabiga calayhi الsalaatu wassalaam allah qur-aanka ku yidhi tabaaraka aladii in shaءa jacala laka khayra min dalika janaatin tajri min taxtiha alanhaar wayajcal laka qusuura. rabbi subxaanahu watacaala haddii uu rabo wuxuu siin lahaa wax ka khayr badan. boqorada adduunyada waxay ku raaxaysanayaan wax ka fiican buu nebigiisa siin lahaa. jannooyin, beero iyo aseendooyin webiyadu ay hoos marayaan iyo filooyin iyo qasriyo ayuu nebiga degi lahaa. laakiin rabbi subxaanahu watacaala janno ayuu u dooray, isaguna waa la doorisiiyey. waxaad doonaysaa inaad noqoto addoon boqor ah sidii nebiyullaahi sulaymaan iyo ambiyadii kale, mase waxaad doonaysaa addoon rasuul ah. markaasuu doontay addoonnimada iyo rasuulnimada keliya ayuu doortay, adduunye ma rabin. nebiga calayhi salaatu wasalaam marka uu seexanayo habeenkii rumayga ama cadayga agtiisa madaxiisa agtiisuu dhigan jiray. mar alle markuu hurdada ka kacana wuxuu samayn jiray in uu ku rumaydo waxaa weeye aya saaca uu baraarugaba waa maxay cadayga afku gashan jiray. cadaygiisa caaishuu u dhiibi jiray, way usoo meeri jirtay, way usoo dhaqi jirtay, way usoo nadiifin jirtay. mararka qaarkood waxaa dhici jirta caaisha naftirkeeda inay barakaysato oo cadaygaasi ay isticmaasho. maxaa yeelay nebiga sal slama waxa ka imaanayoo dhanba waa la barakaysan jiray, biyaha kasoo daadanaya, weysadiisa, mawjeedaa timihiisa, waxaasoo dhan saxaabadu way barakaysan jireen. walidaalika cadaygiisu mar walba agtiisu ooli jirayo maxaa yeelay wuxuu la faqi jiray, uu la sheekaysan jiray malaa'igtii ayuu la sheekaysan jiray oo la faqi jiray jibriil iyo malaa'igtii u waxyoon jirtay. walidaalika nabiga sal slama waxyaalaha rawaa'ixda kariiha leh sida toonta iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaalaha noocaasa raad ku reebaya oo afka ku reebaya wuu iska ilaalin jirayoo mar uu diiday wuxuu ku cileeyey, wuxuu yidhi innii astaxyi min malaa'ikati illah, malaa'igta ilaahay baan ka xishoonayaa. arrinkanna wax xaaraana ma ahe, waa wax xalaala, laakiin innii unaaji man laa tunaaji, aniga waxaan la faqayaa oo la sheekaysa cidaadan la sheekaysanaynin oo yacni malaa'ig ayaa ii timaada. walidaalika nabiga sal slam cadayga saas ayuu ugu dadaali jiray. nabiga calayhi الsalaatu wassalaam habeenkiisaas marka uu jiifto waa maxay gogashiisa ayuu waa maxay go-a ayuu la huwan jiray xaasaskiisba hadba midda uu la joogo. habeenada ka mid a ummi salama radi allahu canha isagoo la jooga ayay waxay leedahay ummi salama anigoo go-a la hoos hurda nebiga sal slama ayaa waxaa igu dhacay dhiiggii caadada ah. markaasaan si yaroo tartiiba u baxsaday oo uga baxay go-i. kadibna nebiga wuxuu igu yidhi ma xaydkii baa kugu dhacay anafisti? haabaan idhi. wuxuuna igu yidhi arrinkaasi waa arrin alleh uu u qoray gabdhaha ilmo aadam ah, waa waxay ka siman yihiin. markaasa waa maxay waxay leedahay ummi salama markaan isi soo hagaajiyey oo aan soo noqday nebiga wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalama tacaali fadkhulii macii fi llixaaf, kaalay oo go-a ila soo hoosgal. markaasay go-a la hoos gashay. arrinkaa wuxuu ahaa in la dareensiiyo in mar walba ay nebiga agtiisa ixtiraam ku leeyihiin xaalad kasta ay ku jiraan ama marxalad kasta ay marayaan. nebiga calayhi الsalaatu wassalaam waxaa dhici jirtay habeenkii inuu maxaa la yidhaahdaa hadduu qabays u baahdo inta uusan seexan inuu qabaysto, haddii kalena uu qabayskaasi uusan damcinna inuu weyse qaato isagoo weysaystay uu weysadaa uu ku seexdo. mararka qaarkood waxaa dhici jirtay qabayska inuu u dibdhigo ilaa inta uu ka soo kacaya. qabayska uu qabaysanayana wuxuu la wadaagi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wakhtiyada qaarkood xaasaskiisa oo hal weel ayay ka wada qabaysan jireen, sida caaisha radiallahu canhaba ay warinayso in ay ku haasaawi jireen
ama ay ku kaftami jireen biyahaasi agtiisa oo midba midka kale uu leeyahay dacli aniga iida tookadayda iyo wakhtigaygii weeye iyo waxaa la midka ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu hurdada isku diyaariyay wakhtiga habeenka ah ducooyinka iyo adkaarta soo arooray ayuu akhrin jiray. adkaarta uu akhrin jiray waxaa ka mid ah allahuma bismika amuutu wabismika axyaa allahuma qinii cadaabaka yowma tabcaثu cibaadaka. ilaahayow magacaaga ayaan ku dhimanayaa oo geeridu igu imaanaysaa, magacaaga ayaanan ku noolaanayaa oo kusoo kacayaa. ilaahayow waxaad iga ilaalisaa cadaabtaada maalinka aad addoommadaada soo bixin doonto. ducooyinka ayuu akhrisan jiray. waxaa ka mid ahaa ducooyinka uu nabiga dhihi jiray calayhi الsalaatu wasalaam alxamdu lilahi aladii aطcamana wasaqaana wakafaana waaawaana fakam miman laa kaafiya lah walaa mu'wiya alxamdu lilahi aladii mana calaya faafضل الحمد لله الذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء وإله كل شيء لك كل شيء أعوذ بك من النار. إلهي بمهد إسكالة إنا قوذيي إنا ورابيي إنا ديقي إنا محالي إنا صودمي بدنا inta aan cid ku filan haysan badana inta aan cid duntay oo maxaaliya maciina uusan aan haysanin. ilaahay baa mahad iska leh nagu galladaystay nicam fara badan oo fadli badanna siiyey. ilaahay baa mahad iska leh ina siiyey cadiyo iyo siismo weliba inoo badiyey. ilaahay baa mahadsan xaalad kastoo aan ku jirnaba. allaahuma rabba kulli shay, adiga waxaa tahay rabbiyow, rabbiga cid wax kasta adigaa rabbi u ah, adigaana wax kasta iska leho maalika kulli shay baa tahay, adaana wax kasta ilaah u aho adduunyadan ilaaha la caabudo waa adiga, wax walba oo dhanna adigaa iska leh. ilaahu waxaan kaa magangelayaa naarta. nebiga calayhi salaatu wasalaam ducooyinka iyo ducooyin kaloo la mid ah oo aada u qiimo badan oo tusinaya faqriga iyo idhaarka la muujinaya addoonnimada iyo tabardarrida iyo dacfiga iyo taagdarrida iyo baahida aan alle u qabno inuu ilaahay hodan yahay innagana aan u baahannahay. arrinkaasuu aada u muujin jiray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi, sida aanba ugu tegi doono kulanka xiga ee iyadana habeenkii aan weliba kusii guda jirno. hada wallahu aclam wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka magangalay nebiga sharta wax walba sharteeda. deynka inuu ilaahay ka gudo ayuu weydiistay, faqrigana in laga kulay. maxaa yeelay deyntu walaalayaal watii xadiis kale uu ku yimid wacuudu bika min galabati اddayni wa qahri الrijaal. ilaahu waxaan kaa magangalay deynta, wax ilaahay laga magangalo wey. waa sidoo kale nabi sal wacuudu bika min alfaqr, ilaahu faqrigan kaa magangalay. maxaa yeelay faqrigu qofku waxaa weeye wax daran oo dhan buu gaarsiiyaa, dulli iyo dacdaruu badaa. ilaahay subxaanahu watacaala deynta intii deyn ku jirtana ilaahay deynta ha ka gudo, intii faqri uu hayana ilaahay faqriga ha ka bixiyo. ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allahuma aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wafawadtu amrii ilayk waaljahtu dahrii ilayk رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.